markii dambe Echidna waxay u yeertay Leo si ay ugu sheegto in Edward uu go'aansaday inuu iska casilo xilka generaalnimo oo uu dib uga bilaabo sidii askari caadi ah. Leo wuxuu ku ballan qaaday Echidna inuu arrintaas ka shaqayn doono. Ka hor intuusan telefoonka ka dhigin, Echidna waxay u sheegtay in marka wax walba la xalliyo ay jirto arrin muhiim ah oo ay rabto in ay kala hadasho. Dhowr saacadood kadib, Lily waxay u soo bandhigtay Leo iyo Julieta golemkii farsamada, makhluuq bir iyo mashiin isku dhafan oo ka haray wakhtigii warshadaha. Leo wuxuu sharxay in uu qorsheynayo in makhluuqan loo adeegsado sidii xal lagu hagaajinayo arrinta Edward iyo ciidankiisa. Wax yar kadib, Edward wuxuu isugu yeeray askartiisa wuxuuna ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka generaalnimo ayna Julieta la wareegi doonto booskiisa. Laakiin shirkii ayaa si lama filaan ah u joojiyey markii golemkii farsamada uu soo weeraray xerada. Edward si degdeg ah ayuu u bedelay go'aankiisii isagoo sheegay inuu weli yahay taliyaha. Wuxuuna amray ciidankiisa inay weeraraan golemka. Inkastoo ay isku dayeen, askartu ma aysan gaarin waxyeelo, ugu dambeyntiina way ka carareen cabsi darteed. Edward ayaa isagu isku dayay inuu keligiis la dagaalamo golemka, laakiin waxaa dhaawac halis ah u dhowaa inuu soo gaaro. Wakhtigaas ayaa Leo soo muuqday wuxuuna sharxay nooca hubka uu golemku wato, isagoo siinaya talooyin sida loo jebin karo. Markuu talooyinkaas raacay, Edward wuxuu bilaabay inuu si fiican ula dagaalamo golemka. Julieta ayaa markaas tilmaantay meelaha jilicsan ee jirka golemka, waxayna tiri weerarka ku dhufo qaybta midig ee caloosha. Edward ayaa sidaas sameeyey wuxuuna ku guulaystay inuu jebiyo golemka. Laakiin isla markiiba golemkii la jebiyey ayaa sameeyey cod aan caadi ahayn, taas oo kicisay golemo kale oo dhow ku jiray. Markaas ayaa Echidna la timid generaalada kale, waxayna si wada jir ah u joojiyeen golemo kale oo soo toosay. Kadib dagaalka, Leo wuxuu ku canaantay Edward isagoo ku yidhi, wax aan la rumaysan karin ayay ahayd inaadan aqoon meelaha daciifka ah ee golemka, sida aad ciidanka ula dhaqantana waa isla sidaas. Hadalkaas ayaa Edward ka fahamsiiyey in uu si qalafsan ula dhaqmay askartiisa, wuxuuna halkaas ku qirtay qaladkiisa isagoo ka codsaday cafis. Askarteeduna way u dhaaftay oo waxay u ballan qaadeen inay si adag u shaqayn doonaan, iyagoo ku booriyey inuusan ka harin hogaamintooda. Maalmo kadib dagaalkii, Leo wuxuu ku jiray qolkiisa isagoo akhrinaya buug, markaas Stayna ayaa soo gashay waxayna u sheegtay in shir gaar ah la qaban doono. Echidna waxay qorsheynaysaa in Leo loo dalacsiiyo darajo hogaamineed oo la mid ah generaalada kale. Leo wuxuu u sheegay Stayna inuu doonayo inuu shirkan uga faa'iidaysto si uu u sharaxo sababihiisa dhabta ah ee ku biirista ciidanka jinka. Markii Stayna baxday, waxay aragtay buug uu Leo akhrinayo oo cinwaankiisu yahay Ibraad, ka qofka isku keena gacmaha. Waxay weydiisay sababta uu u akhrinayo, balse Leo wuxuu ku jawaabay in uu rabay keliya inuu wax akhriyo. Markii Stayna ka baxday, Leo wuxuu xusuustay xilli hore kumanaan sano ka hor, markii uu ku dhowaa inuu dilo jin yar oo la yiraahdo Ibraad. Flashback-kii, Ibraad wuxuu u sheegay Leo in aysan dhammaan jinniyadu rabin inay weeraraan aadanaha. Dhibaatadu waxay bilaabatay markii boqorka jinka uu si kama ah u furay albaab isku xiray dunida aadanaha iyo tan jinka. Jinniyo badan ayaa xiisaynayay inay arkaan dunida aadanaha, iyagoo moodaya inay ka wanaagsan tahay tan ay ku nool yihiin. Ibraad wuxuu ku sharaxay Leo in boqorka jinka Belial uu burburiyey nabaddii jirtay, isla markaana magaciisa laga helay buugaag badan oo aadanaha ah, taas oo laga yaabo inay ka timid qof ka tirsan qoyska boqortooyada jinka oo hore u yimid dunida aadanaha. Ibraad wuxuu isku dayay inuu dib ugu laabto dunidiisa, laakiin albaabkii ayaa la xiray, taasoo ku qasabtay inuu ku xayirmo dunida aadanaha. Wuxuu sheegay in jinniyada ay doonayeen inay ballaariyaan dhulkooda maadaama ay ka yaraayeen khayraadka, laakiin makhluuqaad sida Ogres iyo Ghouls ayaa bilaabay dagaal, taasoo burbur keentay. Markii uu sheekadaas maqlay, Leo halkii uu dili lahaa, wuxuu Ibraad u geeyey kooxda ilaalinta maxaabiista, isagoo u arkay in xogtiisu ay qiimo leedahay. Ibraad ayaa markaas magaciisa u sheegay Leo isagoo codsaday in Leo isagana xusuusto. Wuxuu ku yidhi, haddii nololku kugu adkaado, raac jidkaaga oo noolaaw sida aad rabto. Markii ay kooxda ilaalinta maxaabiista timid, Ibraad wuxuu rajaynayay in mustaqbalka aadanaha iyo jinniyadu ay si nabad ah ugu wada noolaan doonaan. Markii dib loo soo noqday wakhtigii hadda, Leo wuxuu u dhaqaaqay qolka ay degan tahay Echidna, iyadoo hadalladii Ibraad ay weli ka guuxayaan maskaxdiisa. Wuxuu go'aansaday inuu si dhab ah ugu sheego aqoonsigiisa dhabta ah. Laakiin shirkii ayaa si lama filaan ah u istaagay markii mid ka mid ah xubnaha ciidanka uu sheegay in albaabka ruuxa weyn uu xirmayo. Echidna, Stayna iyo Leo waxay isku dayeen inay joojiyaan xirmidda albaabkaas. Laakiin markii ay dadaalka dhammaysteen, waxay kulan degdeg ah ku yeesheen qolka boqoradda. Waxaa halkaas lagu ogaaday in albaabkaasi uu yahay xiriir muhiim ah oo u dhexeeya dunida jinka iyo tan aadanaha. Haddii uu xirmo, waxay qaadan doontaa 100 sano ama xitaa 1000 sano in mid kale la furo. Waxaa la gaaray laba ikhtiyaar: in dib loo noqdo dunidii jinka lana kala diro ciidanka, in la weeraro boqortooyada aadanaha si loo helo dhagaxa falsafadda. Laakiin maadaama boqortooyada ay ilaalinayso geesiga oo ah Leo, inkastoo aysan ogeyn, Echidna waxay dooratay ikhtiyaarka koowaad si aysan dhiig badan u daadinayn. Markaas Lily waxay u muuqataa inay rabto inay sheegto sirta geesiga, laakiin Stayna ayaa si dhaqso leh u joojisay iyadoo leh waqtigeeda ma aha hadda. Echidna oo niyad jab iyo murugo ka muuqato, waxay u jeesatay dhabarkeeda ciidankeeda iyadoo uga mahad celinaysa shaqadooda. Waxay isku dayeysay inay qarsato ilmada ka socota maadaama aysan doonaynin in la arko boqorad daciif ah. Laakiin markaas ayuu Leo si tartiib ah koofiyadiisa u bixiyey, wuxuuna ku dhawaaqay in ay jiraan laba dhagax falsafadeed ee aysan jirin mid keliya. Echidna weli dhabarka ayuu u jeediyey, sidaas darteed ma arkin wejigiisa isla markaaba. Leo wuxuu sii raaciyey in dhagaxa falsafadda uusan ahayn qalab wax walba lagu rumeeyo, balse loo baahan yahay buug tilmaamaya sida loo adeegsado tamartiisa si loogu gaaro hadafka Echidna. Ugu dambeyntii wuxuu yidhi, Echidna, fadlan ii jeeso. Markii ay u jeesatay way la yaabtay. Leo, geesigii ay necbayd muddadaas oo dhan, ayaa hortiisa taagan. Waxay si daran uga cadhootay, buuq iyo qaylo ayaa ka dhalatay.
dhammaan saraakiishii kale Steina, Lily, Edward iyo Merns waxay u soo gurmadeen si ay uga codsadaan Echidna inay dhegaysato Leo. Ugu dambeyntii Echidna way degtay waxayna aqbashay in la fahmo xaaladda. Markaas Leo wuxuu shaaca ka qaaday in dhagaxa falsafada labaad uu yaallo meel buur ah oo uu ilaaliyo makhluuq awood badan. Kooxda oo dhammi waxay u baxeen safar ay ku gaarayaan buurtaas, laakiin intii ay socdeen Lily ayaa la tacaashay qabowga maadaama qabiilkeedu aanu la qabsan karin cimilo qabow. Steina ayaa u adeegsaday sixir si ay Lily ugu samayso kulayl joogto ah, taasoo u suurtagelisay inay safarka sii wado. Intii ay socdeen, Leo iyo Echidna waxay bilaabeen sheeko qoto dheer oo ku saabsan suurtagalnimada in la helo nabad dhex marta aadanaha iyo jinka. Echidna waxay muujisay go'aankeeda adag inay samayn doonto wax kasta oo suurtagal ah si nabad loo gaaro. Leo wuu u qoslay, laakiin Echidna waxay dareentay murugo yar oo ka muuqata wejigiisa. Ka hor inta aysan weydiinin waxa uu ka fikirayo, Leo wuxuu ku bilaabay inuu ku maadsado, taasoo keentay in Echidna baraf ku tuurto. Waxay labadooduba u muuqatay dad isfahmaya, xitaa saraakiishii kale waxay is yiraahdeen. Waxaa laga yaabaa in Leo uu noqon doono generaalka shanaad. Markaas Leo wuxuu u sheegay Echidna runta dhabta ah ee ku saabsan jiritaankiisa, inuu yahay geesi kumanaan sano jiray, kuna xayiran yahay wareeg aan dhammaanayn oo ah inuu badbaadiyo aadanaha. Markii ay buurtu soo gaareen, Merns wuxuu isweydiiyey, aaway ilaaliyihii xoogga badnaa. Markaas Leo ayaa yaab ka dhigay, wuxuu sheegay in aysan jirin wax ilaaliye ah. Dhagaxa falsafada labaadna uu yahay wadnihiisa. Wuxuu u sheegay in haddii ay isku dayaan inay ka cararaan, uu burburin doono dhammaan dunida. Wuxuu sheegay in si loo badbaadiyo aadanaha iyo jinka ay tahay in iyagu dilaan isaga. Markaas ayuu Leo weerar ku qaaday isagoo seef ku haya. Laakiin Echidna si degdeg ah ayay uga hortagtay oo u adeegsaday sixir si ay u difaacdo dhammaan asxaabteeda. Markaas ayay maskaxda Echidna dib ugu laabatay xusuusteedii yaraanta. Xusuustii Echidna ee carruurnimada ayaa dib u soo noolaatay, waxay xasuusatay addoon u sheegay in geesi aad u awood badan uu ka jiro dunida aadanaha. Geesigaasi wuxuu awood u lahaa inuu ka adkaado boqorkii jinka ee Belial iyo sidoo kale sixiroolihii weynaa ee Nostoro. Addoonkii ayaa uga digay Echidna in haddii ay maalin maalmaha ka mid ah boqorad noqoto, aysan geesigaas la dagaalamin maadaama laga yaabo inuu dilo. Echidna waxay xilligaas tiri, wuu keli yahay, waxba igama qaadi karo. Laakiin sidoo kale waxay sheegtay in laga yaabo inuusan dagaalba dhicin maadaama aysan rabin inay noqoto boqoradda dunida jinka. Markii la soo laabtay waqtigii hadda, Echidna waxay isku dayday inay la hadasho Leo, laakiin isagu wuxuu weerar ku qaaday isagoo dagaal seefeed bilaabay. Generaalada oo dhammi way la yaabeen markay arkeen labadoodii oo dagaalamaya. Leo wuxuu ku guulaystay inuu dhulka dhigo Echidna, wuxuuna ku dhawaaqay, aniga ayaa loo abuuray inaan badbaadiyo dunida. Wuxuu isku dayay inuu dhirbaaxo halis ah ku dhufto, laakiin Echidna way ka carartay. Leo wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dunida burburiyo si uu u badbaadiyo, maadaama haddii kale uu lumin doono aqoonsigiisa. Echidna waxay fahamtay in hadallada Leo ay iskhilaafsan yihiin. Balse markaas ayuu si dhab ah u bilaabay inuu u dhaqmo sidii madow oo shar ah. Wuxuu isticmaalay sixir dabayl ah oo ay ku duushay Echidna, wuxuuna isku dayay inuu ku dilo seef. Laakiin Edward ayaa isdhigay si uu u badbaadiyo boqoradda, wuxuuna isku dayay inuu la dagaalamo Leo keligiis. Steina ayaa isku dayday inay hadal ku joojiso Leo, laakiin wuu carooday. Wuxuu si xoog leh u tuuray Edward isagoo sheegay in qof aan fahmayn uusan ishortaagi karin. Steina waxay isku dayday inay joojiso, waxayna isticmaashay sixir madow oo lagu magacaabo xabsi cadaadis madow si ay ugu xanibto Leo gudaha. Laakiin Leo si fudud ayuu uga baxay xabsigii sixirka, wax dhaawac ahna kama gaarin. Markaas ayuu ku laabtay weerar, wuxuuna si adag ugu laaday Edward. Wuxuu u sheegay Steina, haddii aad rabto dhagaxa falsafada si dhab ah u dagaalama. Steina waxay isku dayday inay fahamto sababta uusan Leo u sii wadi karin sidii uu horay u caawinayay, laakiin Leo wuxuu ku adkaystay in haddii aysan dilin, dunida oo dhan way haligmi doontaa. Wuxuu u weeraray Steina tiro badan oo fallaaro sixir ah. Edward ayaa isku xidhay si uu u difaaco. Leo ayaa markaas isku dayay inuu dilo, balse Echidna ayaa joojisay. Markaas Leo wuxuu muujiyey niyad jab buuxa, wuxuu yidhi, waan daalay maadaama aanan dhiman karin, noloshayda waa la celinayaa mar walba inaan badbaadiyo dunida. Wuxuu cirka ka tuuray fallaaro sixir ah oo badan isagoo ku hanjabay inuu burburin doono dhammaan caalamka. Echidna ayaa adeegsaday gaashaan sixir ah si ay u badbaadiso dhammaan generaalada. Markaas Lily ayaa ilmeynaysa ka codsatay Leo inuu joojiyo, iyadoo tiri, markii hore adigaa i dhegaystay, ha naga jeesan. Laakiin Leo wuu iska diiday, wuxuuna ku eedeeyey inay yihiin dadka ugu daciifsan. Markaas ayuu ku dhuftay Lily lightning, taasoo miyir beel ka dhigtay. Echidna aad ayay u carootay, mana aysan arkin Leo sidii geesigii ay garanaysay. Waxay bilowday dagaal si dhab ah, iyadoo niyad jab iyo cadho ku jirto. Dagaalkii u dhexeeyey Echidna iyo Leo wuxuu sii noqday mid aad u adag oo murugo leh. Echidna waxay dagaalamaysay si ay u badbaadiso dadkeeda, halka Leo uu weli ku adkaysanayay in haddii aan la dilin uu burburin doono caalamka. Echidna waxay si aad ah u adeegsatay sixirkeeda ugu awoodda badan, iyadoo ka duulaysa qiiro, cabsi iyo murugo isku dhafan. Steina, Edward iyo Merns way dhaawacmeen intii dagaalka socday, waxayna u muuqdeen kuwo aan waxba qaban karin. Lily weli miyir la'aan ayay u taallay dhulka, codkeedii iyo murugadeedii ayaana weli ka guuxayay maskaxda Leo. Intii dagaalku socday, Echidna waxay ku qaylisay, haddii aadna jeclayd maxaad sida noogu yeelay? Laakiin Leo isagu wuxuu dareemayay in aysan cidina fahmin culayska uu qaadayay kumanaan sano, mar kasta la dagaalamayo, mar kasta la badbaadinayo, mar kasta la xukumayo, mar kasta la gooynayo. Dagaal dheer kadib Leo waa laga adkaaday. Wuxuu si tartiib ah u dhigay seeftiisii, wuxuuna yidhi, waan daalay, aad ayaan u daalay. Echidna waxay u timid si deggan, iyadoo u eegaysa si naxariis leh. Way istaagtay hortiisa waxayna tiri, haddii aad doonayso inaad nasato waan kuu oggolahay, Leo.
wuxuu hoos u foorarsaday isagoo ilmaynaya wuxuuna ugu dambayn ka oggolaaday in uu isdhiibo. Halkaas ayay ku dhammaatay sheekada. Fadlan subscribe ii saar. Halkaas ayaan idinka tegayaa maca salaamaa.